shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo gacan ka helaysay hay'adda isku xirka NGO-yada ayaa waxa looga hadlay sidii hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ay xafiis uga yeelan lahaayeen gudaha dalka misna shaqaalaha xafiisyadaasi looga dhigi lahaa kuwa Soomaaliya iyo bixinta canshuuraha. Shirka oo ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa goobta ka hadlay wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan waxa uu digniin u diray hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya in muddo 3 bil gudahood ay xafiis ugu furtaan gudaha dalka. Waxa uu sheegay wasiir Jamaal hay'adii u hoggaansami weydo baaqasi in dawladda aan wax wada shaqeyn ah aysan dhexmari doonin. NGO-yada caalamiga international NGOs ka loo yaqaan shirka waxa soo qaban qaabay wasaaradda qorsheynta iyadoo kaashanaysa hay'adda xiriirisa NGO-yada madaxda ka yahay Cabdiraxmaan Shariif. waxaa kulankan markaa ka soo qayb galaysan sheegay madaxda hay'adahaas oo dhan sababta aan u shirnay aan la shirnay waxay ahayd in aan u sheegno in dawladda Soomaaliya ay rabto hay'adaha caalamiga internationalka ee ka shaqeeya mashaariicda Soomaaliya inay Soomaaliya joogaan wadan degan yihiin shaqaale Soomaaliya qortaan cashuur bixiyaan xarumahooda wadanka hado waqtigii Nairobi la joogi jiray ama wadamo kale la joogi jiray Soomaaliya loo iman jiray maalin shaqo maalin ah ama laba maalmood ah meelaha la soo malbeelay waa dhamaatay waxaan siinay ilaa 3 bishan sanadka inta ka hartay inay ku soo guuraan dhamaantood hay'adii January 1 banaanka joogta wali xafiisyadeeda wadanka kale ku yaaleen saas oo kale maalmahan wadanka soo gaarta dawladda Soomaaliya lama shaqeyn doonto waxaan idin sheegaynaa hay'adii Soomaaliya ka shaqeysa international oo Soomaaliya barnaamijyo Soomaaliya fulis ay wadanka degan tahay xarun ku leedahay cashuur bixinayso shaqaale Soomaaliyeed qorato dadka Soomaaliyeedna si lacagta ugu soo qaadaan ugu talagaleen ugu faa'iideeyaan marka arintaas aan u sheegnay aan kale u sheegnay in waxyaalaha ay qabana wadanka qabana la soo socodsiiyaan hay'adaha dawladda la shaqeeyaan inana hay'ad NGO madax bannaan oo suuq waxa rabta magaalada ka samaysan NGO laakiin la shaqeyso hay'adaha kala duwan ee dawladda wasaaradaha dawlad goboleedyada ilaa heer degmo heer tuulo meel allaale meesha jooga inay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda la shaqeeyaan ay mashaariic la fulaan si ay u dhisanto awoodda iyo capacity-ga hay'adaha kala duwan marka arintaas aan u sheegnay oo isla qaadanay notice-ka digniinta waan siinay waxaan sugaynaa insha Allah rajaynaa inay hirgeliyaan hay'adda hirgal mar kale aan ku celinayaa hay'adaasi kama shaqeyn doonto wadanka wax xiriirna dawladda lama yeelan doonto haddii wali banaanka joogaan oo sidoo hore ku socdaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ka howlgala hay'ado caalami ah kuwa oo aad u fara badan misna aan xafiis ku lahayn gudaha dalka Soomaaliya balse baaqan wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah Soomaaliya ee maanta ay soo saartay ayaanan la ogeyn in hay'adahaasi ay u hoggaansami doonaan iyo in kale Cabdi Fataax Durdur Tusmo TV Muqdisho.